بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال بيان كان waxaan u jeedinaynaa walaalahan Soomaaliyeed in aan maartay jawaab degdeg ah ka bixino daadadkii iyo musiibadii ku habsaday magaalada Qardho magaaladaas oo runtii ay daad qaadeen dad badanna ay ku waxyeeloobeen naftoodii hantidoodina ay ku waayeen dad baa dhaawac ah dad baa ilaa hadda la la'yahay dad baa carruurtoodii biyaha qaadeen magaalada guryaheedii badankoodii waa dumeen marka saano kale markii dhacdo walaalayaal waxaanu caan ku ahay inaynu isu gurmano aan isgarab istaagno sidii dhacday haddaan dib idin xasuusiyo waqtiyo badan ay ugu dambeysay xaaladda ka dhici jirtay beledweyne bishii Oktoobar iyo November sanadka 2019 haddaad tahay qof muslim ah oo danqanaya oo damiir leh waxaa la rabaa maanta inaad tidhaahdid qofka mu'minka ee walaalka ah ee dhib ku haysto waa ikana waan garab taaganahay carruurta agoontowday iyo dumarka barakacay iyo dadkii awal indhoolayaasha ahaa ee magaalada deganaa iyo masaakiintii iyo wax mahaysatadii ayagoo coronavirus uu hayay oo guryaha ku aruursanaa baa haddana dhibkaanu ku dhacay qof walba naga mid yahay maanta duruuftaas ka danqado oo dadka walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed inuu kala qayb qaato dhibkan ku tala galo nafteynaynu ka qaadaynaa nafteynaynu u bixinaynaa walaalaha inaynu u gurbanno sidaa daraadeed waynu fiicannahay reer Minnesota gacanta is haystaan shalay iyo maanta waxaan sameynay dhaqdhaqaaq degdeg ah guddi waxaan magacawnay emergency ah ka shaqeynaya maaragtay isku aadinta iyo isku dubaridka wax qabadka ee maaragtay jaaliyada runtii guddigaas ilaa shalay iyo maanta wax badan baa u qabsoomay waxay diyaariyeen qaababka kala duwan oo lacagaha walaalaha maaragtay loogu taakuleen karo waxaan marka rabaa inaan idin la wadaago meelihii aad wax ku soo dir lahaydeen hay'adda REAL waxay idin diyaarisay inaad ku soo dirtaan akoonnada cash appka Zila webka hay'adda oo shaashada ka arkaysaan goofanka qof kasta marka waxay u sahlan maanta inuu ka qayb qaato walaalis wax kastoo awoodo waxa ugu badan iyo waxa ugu yar $5 haddaad awoodid iyo haddaad kun awoodid iyo haddaad ka badan awoodid haddaad ka yar awoodid intaba diyaar baan idinla nahay annagu guryahaynu ku xirannahay carruurteenni baynu haysanaa laakiin maanta dad baan haysan oo guryahoodii jiifin oo aan cunto haysan oo meelay seexdaan aan haysan aynu garab istaagno walaalayaal aynu la gurmano maantana aan carruurteena wax u sadaqayno oo nafteena aan wax u sadaqayno oo ehelkeena aan wax u sadaqayno waalidkeena inta aan wax u sadaqayno sadaqa jaariya taasaa ilaahay nagu xifdinaya maadaama lagu jiro zamankii la kala xayirnaa oo cudurkii coronavirus uu caalamka kala maaragtay kala xayiray waxaan diyaarin WhatsApp gruubyadii zoomamkii lagu shiraayay maaragtay goofankii maaragtay cash ababkii baa la diyaariyey insha allahu tacaala waa qaabab walaalayaal adigoo gurigaaga jooga oo iska nasanayo oo fudud daqiiqad baan kugu qaadanaynin aad walaalaha sadaqa ula gaari kartid lagu badbaadiyo maaragtay nafaf banaanka taagan iyo dad guriga maaragtay ka soo baxay iyo dad maaragtay ganacsigoodii iyo ehelkood bay maaragtay ka dhamaadeen waxaan marka walaalayaal aan ilaa haddeertaan gaarnay dad aad u kooban waxaan rajaynaynaa reer Minnesota dad maaragtay lagu yaqaan deeqsinimo iyo karam iyo maaragtay ehelnimo lagu yaqaan weeye in aad la tacaamushaan maaragtay wax ka qabataan ka jawaabtaan gurmadkan degdega ah bari oo khamiisa iyo jumcadan iyo ilaa insha Allah taala weekendigan waxaan kaga baahanahay hiil iyo hooba insha Allah taala walaalayaal gunaanadka maanta waxaan leenahay walaalaha reer Qardho ha loo duceeyo ilaah waxaan ka baryaynaa adiga raxmaan oo raxiim ah reer Qardho ilaah u gurmo ilaah reer Qardho u soo gurmo oo waxtar oo dhibka ilaah ka dulqaad ilaah roobkan da'aya ee aad nagu barwaaqaysay meelaha buuraha ah iyo meelaha xooluhu daaqaan iyo waadiyada iyo meelaha beeraleyda ah ilaahu yeel ilaahayow sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam allahumma hawalina wala alayna aan ku barino ilaahayow intii dhimatay u naxariiso ilaahu inta dhaawaca u boogadhay ilaahu inta la la'yahay soo sahal iyagoo nool oo caafimaad qaba bad qaba ilaahu soo sahal ilaahu musiibada Soomaaliya ka dulqaad ilaahu qof kasta oo maanta u gargaaray walaalahaas oo garab istaagay ilaahu xaajadiisa adiguna garab istaag oo kab ilaahu dhibka naga qaad intaasaan reer Qardho ugu ducaynay ilaahay dhibka ka qaado roobabkan kale oo da'ayana shartooda iyo dhibkooda Allah naga duwo nafcigoodana Allah na soo gaarsiiyo Ramadaan wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.